laas caanood dhibaatada maanta balaaratay in badan bay socotay oo dadka la ugaarsanayay annaga gudoomiyahayga gobolka oo nin qiimo lahaa ilaa Maxamed Afrax waa lagu dilay ninkii inoo hayay komishanka waa lagu dilay ninkii xeeraaliyaha waa lagu dilay kii uu dambeeyay ee ina maanta la dilay waxa xusbiga wadani intaas oo dhibaato jirtay dawladda Soomaaliland Muuse imaka ku magacaaban yahay wax warna kamay soo saarin wax dadaalna kamay sameyn marbay ilaahay dadkii baanu qabanayo dadkii qabteen iyo dadka xireen inay dadka u soo bandhigeen uma soo bandhigeen horta saasay dawladnimo maanta halkeenu ka marinaa halkaas ahayd waxaan leeyahay dadka reer Laas Caanood waanu ka xunnay waxa dhacay waanu ka xunnahay waa ogtiino mudaharaad baa dhacay August 12keedii 7 qof baa ku dhintay la isma weydiin waxa suuq lama oran waa qalad dawladda samaysay laakiin cid loo aanay oo dawladda ahayn horta ma jirto marka waxaan leenahay dawladdu ha ka soo baxda mas'uulkeedii wasiirka amniga inoo arrimaha gudaha amniga inoo qaabsana tuulooyinka reerkoodu marmari hadda waxa halka ahayd inuu soo ordo oo soo saaro statement oo nabadgelyo ka hadlo qof kuma dhashay qof baa ku dhintay hadda ilaa qof dhowr qof baa dhintay oo si qalad ah u dhintay ilaahay u naxariistay qaana dhaawac baa jira maantana maalin Soomaali u baahan tahay dagaal 5 milyan oo Soomaali oo geeska degan ayaa macluul looga baqaya in maanta dadka u gurmaday moojaane in dadka hub u gelino isdilar Soomaali wax khayr oo ka jira oo wanaag ka imanaya ma jiro waxa leena waa ka xunna walaalayaal dhibaatada dawladda ka sheeganaysan meel kasta way ka sheeganaysan reer kasta uu ka sheeganaya degmo kasta waa ka sheeganaysan waa hoggaanka Muuse Bixiye ee wax tala reer Sheekh Saxaaqa oo reer ku jeeda ma jirto marka dadka iswada dhalay ee walaalaha ee ehelka ha isku dirina maaleeya fidma lama abuuro qofka haduu madax yahay wanaag buu ka sheekeeya haduu garaad yahay haduu suldaan yahay waajibkiisu wax weyn oo wanaag iyo isjecel iyo kelimada wanaagsan arintana waa arrin wada haysata waana ka wada murugaysanay dhimashaas kaligiin maahe waa turiyay Soomaaliya oo dhan ku dhacday waa ku dhacay Ilaahay oo naxariisto dawladda wax leenahay xilkeedii ha ka soo baxdo walaalayaal Ilaahay nabadda inoo adkay